kulanti wanaagsan saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo caawa ka socda qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Abuurey sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogta safarka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago go'aano culus oo ka soo baxay maanta galinkii dambe shir ay yeesheen maamulka Somaliland xogaas ayaan rabaa inaan idin la wadaago waxaan ka codsanay haddii ay tahay markii hore ay soo booqato waxaan ka codsanay inaad subscribe ila channelka like ni share iyo share gareysid aad iyo aad maasantahay haddii aan ku bilaawno caawa qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Abuurey waxaa laga soo warinayaa in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab uu ka socdo dagaalkan ayaa imaanaya kadib markii kooxda Al-Shabaab ay caawa weerar halkaas gaadmaha ay ku soo qaadeen sababtoo maalmihii la soo dhaafay Abuurey waxaa ka socday dagaal culus oo u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Al-Shabaab Abuurey waxay noqotay meesha ugu badan ee lagu jibiyay ciidankeeda sababtoo ah waxaa la arkayay xitaa rag ajaanib oo kooxda ka tirsan oo u dhashay wadamada Itoobiya iyo Carabtan oo meedadkooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku jijiidayeen qaybo ka tirsan Abuurey sidoo kale waxaa la arkayay shacabka reer Hiiraan oo meedadka raggaas ajaanibta ah ku jiidaya laamiyada waaweyn ee deegaanka Abuurey raggan meedadkooda laamiyada lagu jijiidayay ajaanibta ayaa waxaa duqeyn ku dilay diyaaradaha cirka ka caawiya Soomaaliya diyaaradda Kanji ayaa si qaas ah duqeymahan u fulisay waxaana la soo warinayaa in halkaasi tiro maleeshiyada ay horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab caaw halkaasi lagu beegsaday shacabka reer Hiiraan ayaa durba meedadkii kooxda halkaasi loogu dilay waxay u soo qaadeen magaalada Abuurey waxayna ku jijiidayaan laamiyada deegaanka Abuurey sidoo kale dagaalkan caaw halkaas ka socda waxa uu noqonayaa dagaal galay maalintiisii shanaad bacdama Al-Shabaab halkaasi ay 4 maalin oo maanta ay ku shan tahay weerar gaadmaha oo xiriir ay ku soo qaadayeen balse Al-Shabaab halkaasi waxay noqotay meesha ugu badan oo Al-Shabaab lagu jibiyay bacdama xitaa halkaas Al-Shabaab lagu dilay saraakiil ajaanib ah oo ka tirsanaa kooxda oo u dhashay wadamada Itoobiya iyo wadamada Carabta ah sida laga arki karay meedadka halkaasi lagu jijiidayay ee shacabka reer Hiiraan halkaasi ay ku jijiidayeen dhanka kale Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta waxa uu ka degay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay hogaamiyaha maamulka SSC Khaatama Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye Ra'iisul Wasaare ayaa halkaasi markii uu ka degay kadib waxa uu khudbad gaaban halkaasi ugu jeediyay oo ku sheegay in safarkiisa uu daaran yahay in la isku soo dhaweeyo maamulka SSC Khaatama iyo dowladda federaalka sidoo kale safarkiisa uu yahay safarkii midnimada Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare ayaa khudbadiisa kadib waxa loo galbiyay qasriga madaxtooyada maamulka SSC Khaatama halkaas oo hadda uu kulamo kula qaadanayo dhaqanka SSC iyo madaxda halkaasi ku sugan sidoo kale Ra'iisul Wasaare ayaa waxa la filayaa in maalmaha soo socda halkaasi 12 mashaariic sida ay noo xaqiijiyeen ila xog ogaalo safarka Ra'iisul Wasaare qayb ka ah ay noo xaqiijiyeen in halkaas Ra'iisul Wasaare 12 mashruuc uu ku fulin doono maalmaha uu sugayo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaana halkaas xafiisyada dowladeed loogu furi doonaa hay'adda NIRA ee hay'adda aqoonsiga dadweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen ila xog ogaalo oo la socda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre haddii aan u weecno dhanka Somaliland waxaa soo baxayay saacadihii la soo dhaafay warar sheegaya in maanta galinkii dambe golaha wasiirada maamulka Somaliland iyo xisbiyada maamulkaasba ay yeesheen kulamo gaargaar ah oo ay ugu hadlayeen safarka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool balse goor sii horeysay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in dowladda Mareykanka ay qiyaantay ayna ugu baxday balankii ahaa in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre safarka uu ku tagay magaalada Laascaanood ay ka joojinayso balse wasiirka oo qoraal soo dhigay ayaa sheegay in Mareykanka ay been u sheegeen safarka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre la baajin waayay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre haddana ku sugan yahay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool taas beddelkeeda xisbiyada maamulka Somaliland iyo golaha wasiirada maamulkaasi bayaano ka soo baxay ayaa lagu sheegay in maamulka Somaliland saacadaha soo socda ay qaadi doonaan talaabo ka dhanaa safarka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Laascaanood iyagoona sheegay in halkaas duqeymo culus ay ka fulinayaan inta uu ku sugan yahay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre sida ay hadal ku dhigeen sidoo kale qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada maamulka Somaliland oo uu gudoomiyay madaxweynaha maamulkaas Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in qarannimada maamulka Somaliland ay iyadoo u madax banaan tahay hadda kadibna ay diyaar u tahay inay difaacato sidoo kale qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada maamulka Somaliland waxa ka mid ahaa in magaalada Laascaanood ay ka tirsan tahay maamulka Somaliland balse sida la rumaysan yahay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxay noqotay maamul gooni u taagan kana tirsan dowladda federaalka Soomaaliya maamulada hoos yimaada iyadoo saacadaha soo socda la rajeynayo in SSC Khaatama ay ka baxdo ku meel gaarnimada ee noqoto maamul buuxa oo hadda kadib qayb ka noqda fadhiyada golaha wada tashiga qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka
wixii warar ka soo kordha safarka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo dagaaladan ka socda qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe idhaahdo like iyo share gareysid si aad u gaaro saaxiibo badan like-tan barnaamijka waxay ka caawinaysaa inuu saaxiibo badan gaaro aad iyo aad maasanta adiga ayaana soo noqon kara alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin mudane madaxweyne xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka madaxda dhaqanka ururada bulshada dhallinyaradan quruxda badan ee sharafta badan dhammaantiin dadka reer khaatumo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mudanayaal iyo marooyin walaalayaal ka cuudi daaranaynaa oo aad idinka raali gelinaynaa qorraxda kulul iyo muddada dheer ee aadna sugayseen aad iyo aad baan idinka raali gelinaynaa raalli ahaada waxaan ku faraxsannahay inaan maanta idinla joogno waana idinla joogi doonnaa ilaahay idankiis wixii iswaraysi ah kaftan sheeko intaba waynu isugu imaan doonnaa haddii ilaah inaad iga wax qabad kulankeennan ama ziyaaradeennan booqashadeennan waxay xambaarsan tahay midnimo iyo nabad iyo walaaltinimo Soomaaliyeed waxaan leenahay khaatuma ha noolaato dadkeedu ha noolaadaan guulaysta waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.